qaar ka mid ah haweenka ka soo jeeda gobolka Saraar oo maanta shir jiraad ku qabtay magaalada Burco ayaa waxay ka jawaabeen hadallo ka soo yeedhay haween ay isku deegaan yihiin kuwaasi oo sheegay in beeshoodu ka baxday xisbiga kulmiye eedana u soo jeediyay xukuumadda iyo wasiirka madaxtooyada Soomaaliland. haweenkan ayaa shirkooda jiraad waxay ku sheegeen in kooxdaasi hadashay aanay matalin beeshooda iyagoona raaligelin ka siiyay wasiirka madaxtooyada iyo xisbiga kulmiye hadallada ka soo yeedhay haweenkaasi, waxayna intaasi ku dareen inay xisbiga kulmiye ahaayeen tan iyo aasaaskiisii haatanna aanay joogin meel ay kaga hadhaan. waa kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. waxaan ka hadlayaa arrintii ka dhacday laba cisho ka hor magaalada Saraar sibaan caynaba hablihii ka hadlay ee xisbiga kulmiye aflagaadooyinka iyo waxyeelada badan u geystay. waxaan leeyahay hablahaasi waxay cid la tashadeen ama cid wax soo geysiyeen ma jirto. waa habla iyagu go'aankooda ama rayigooda ka hadlay. cid maalikan maanta waxaan ku la ogeed ama la socotay ma jirto. haddaanu nahay anagu hablihii beesha Cumar Jibriil waxaan leenahay arrinkaasi arrin meel ka dhaca buu ahaa, arrin aad u foolxun buu ahaa, arrin aan wax la isku ogeyn buu ahaa. gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo xoghaynta goor la doortay war kama hayno, anagu waxaan la soconay ma jirto. ninka wasiirka la aflagaadeeyay halkan waxaan u marinaynaa wada raaligelin xaaliyo booliis ayaan leenahay qaado. haddaanu nahay hablihii beesha Cumar Jibriil waxaan leenahay arrinka isaga ah ee halkaa ka dhacay xaal baan kaaga soo diraynaa wasiir. waxaan leenahay hablahana foolxumo aad u weyn baa samayseen. maanta maalin ka dambeysayaan waxaa laydinku maqlin sharaf nooma aha inaan anagu halkaa ka hadalno nirano beel baan matalaa. waa wax meel ka dhac nagu ah. marka waxaan leeyahay hablaha rataani yaani ceebtaasoo kale inagu soo noqon. waxa weeye xisbiga kulmiye oo ka diga roganana bay dhahdeen qaniin baa naga baxay. horta anaga qaniin naguma bixin. xilkan ay leeyihiin xilna lama siina tiyo 2 bilood ka harsan tahay xil maanta dooni mayno. waxa weeye xil waanu haysanaa, wasiir dowlayaal baanu leenahay, agaasimayaal waanu leenahay, barasaab baanu leenahay. reerku wuxuu leeyahay madax dhaqameed, wuxuu leeyahay sulaadiin, wuxuu leeyahay maxaan dhahdaa golo guurti golo baarlamaan. habar jeclaynta leedahay waanu leenahay. maantana caban mayno. sidaan u soo saarnay kulmiye aan ugu halganay maxaan dhahay madaxweyne Siilaanye si ka sii sharaf badan baan bixi soo dhaweynaynaa. waxa weeye annagu ma oranayna maanta bidii mister raqda markii ugu dambeeyay ka kaxay noqon mayno. Cumar Jibriil 3 dumar oo aynaba taagan ma matalaan, annagana ma matalaan. Cumar Jibriil ma haweenkaygana ma matalaan, ragayagana meel ka dhac baa lagu sameeyay. waayo cabatin hadduu jir ragayaga caban la anagu dumar baan nahay, ragayagaan daba taaganahay, wadaday maraan baanu maraynaa, halkay noo jeeyaan baanu jahaysmaynaa. ilaa iyo dhowr iyo 10 sanadood ee kulmiye jiray asad markuu dhacay baan kulmiye ahayn. sidina waanu nahay kana bixi mayno, meel kalena tagi mayno. gobolka Saraar waa runtooda cod waanu leenahay. sida ay sheegeen weeyaan oo 50% baaba yiraahdaan anagu 78 baaba nahabina. adkayaga kulmiyaale awalna waanu hayn, maantana waanu nahay, kana bixi mayno ilaa mijahayaga ilaa madaxayaguba. waxa yimi maxamuud xaashi inaan aqoon baa wax ka sheegay. anu isagoo inay yara laata jira Burco gudoomiyaha markii dalka soo galaan garanaya. 4 cirada maanta lagu arkay wasiir xaashi wuu mahadsan yahay. waa wasiirkii wasiirada, waa wasiirkii Soomaaliland, waa wasiirkii maxamuud xaashi oo inaad rood mahadsantay bilfadlan mahadsanaan baan ku haynaa, naga raali ahaw. waxaanu kala u mahadnaqaynaa xisbiga kulmiye isna raali ahaado. waayo nin walaalna hadduu walaalkii Omir qaba. Soomaalidu waxay ku mahmahdaan nin isfaanshay waa riis nuugtay. annaga 3 hablood oo iyagu kaligood gudoomiyay iyo xog hayiyo balaa isu ahayn nama matalaan. reerku uu balaaran yahay, berberu golo deegaan ku leeyahay, Saraar buu ku leeyahay, madaxdiisa waa la yaqaanaa, suldaama u taliya, ina yaro dhiyaas baraahi uma taliso iyo 2 gurdan raacisi. waxaan leeyahay hablaha guuxiina ha ka dheeraynina, ragiinana sharafta ha ka qaadina. annaga rag baa noo taliya, ilaahay rag buu dunida ku aaminay. halkii dumarnimo iyo wixii aanu karti leenahayna waanu ku garab taagana. waxaanu kala oo leenahay kulmiye wax la isweydiin karo question mark la saaray maaha, laakiin waa wax la arkay oo la yaqaano. waxaan leeyahay geesiyaashiyow guuleysta. qofka hadii uu isagoo baasta doonaya bariis lagu casuumo oo yiraahdo mar hadii baasta la siin waayay bariiskan ka cadhoonaya waa mushkilad.
idinkaa og halkaad ka cadhooteen cida idin dooratayna og halkan reerkii oo dhan cid matasha baa joogta cidina ma maqna waxaanu leenahay odhan mayno annagu beesha Cumar Jibriil baa ka diga rogatay kulmiye maxaa kulmiye waxba naguma samayn ragayagii baa ka shaqeeya waa xusbi ummadda u dhaxa cid waliba ku jirto reer Soomaaliland de markaa dhubuq hore dhaban hays dambay leedahay arrintaa iska hubsada waa sida aanu u sheegnay waanu garab taaganahay markaa mucaarid ma noqon karo anigoo muxaafida ilaahayow afkaanu dooga ku daaqnay dee abaar hanoo jeedin waxa weeye anagu waxaan nahay reerka kulmiye ah ee Cumar Jibriil saddexda habloodena matalayna dee saddex hablood qabiil dhan ma matali karaan ama maxay tolay reer dhan oo qabiil ah oo meel walba degan sida ay sheegeen dee waxaanu leenahay odayaal baanu leenahay oo wax garad baanu leenahay oo waxaanu leenahay maxay tolay wasiiraanu leenahay marka dee hablena matali kara maaha reer ballaaran oo dee Cumar Jibriil leeyahay meel walba degan iyagu horta maxay tolay halkii ay xaalka iyaga xaalka lahaa laakiin anaga xaalkii bixinay haddaan maxay tolay hablaha Cumar Jibriil kow hanaga raali ahaado hanaga dhamaan raali gelin iyo booliis iyo xalba waxaanu siinaynaa maxay tolay xusbiga kulmiye weyne xaal hanaga qaato gaar ahaan Maxamuud Xaashi Cabdi ayaan xaal siinay wasiirka iyaga koobaad ee madaxtooyada fadhiya marka maxay heeday hadalka badin maayo anigoo soo koobaya waxaan anagu nahay beesha Cumar Jibriil hadaan nahay kulmiyana lagu ogi horiya dambaysaba anagu waxaan gudaynaa abaalkii uu kulmiye noo galay hadaan nahay reer ahaan beel ahaan hadaan nahay way ayaan gudaynaa oo waa nalagu leeyo mid lagu laa weeyaa